adeega soo kordhiseen waa mahadsantiin laakiin mid baan ka codsanen haddaan odayaasha nahay taquleed waxaan u baahanay miirooyine balana kan naga warhayaada waa xildhibaan Axmed Maxamed Diiriye Nacnac oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland waxa uu shirkadda isgaarsiinta casriga ee Telesom ku hambalyeynaya laba adeeg oo ay soo kordhisay maalintii shalay kaasi oo kala ahaa adeega Kaafi oo uu qofku ku shubanayo $7 isla markaasina uu ku hadlayo bisha oo dhan iyo sidoo kale adeega aroos wacan oo ay isku guurinayso 30 dhalinyaro oo reer Soomaaliland kaasi oo ay damaanad qaadayso kharashkooda kiradooda iyo kharashka ku baxaya arooska muddada 6 bilood ee u horeeya xildhibaanka oo hambalyadaasi u diray shirkadda ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala sayyidina mawlana maxamed adeer sagaaloodkii ku jirnaa iideed alla isku keen gaarsiiyo dadka muslimiinta meel kasta jooga waxaan leeyahay ciid mubaarak halkan waxaan uga mahadnaqayaa shirkadda Telesom oo laba adeeg soo saartay Kaafi oo ah ku shubo $7 oo bisha dhan ku hada iyo aroos waano dadka 30 kanin inaan isku guurinaysa 30 inaan 30 hablood isku guurinaysa waxa la yiraahdo waa mahadsantii aad iyo aad baa mahadsantii waliba dadka waa caawin jirteen Allah ina caawiyo meel mar u baahantiin ba heli doontaan dhalinyarada waxaan leeyahay ka faajeysta warauska ka faajeysta oo qiimaka aan ku hayo maalmaha ka faajeysto taa ilaahay shirkadda Telesom inoo diray eegeedan waxaan ka deewa adeeg khayr qaba waa mid $7 ku shubo ilaa bisha dhan ku hadlaya all of the way midna waxa weeyaan waa aroos wacan laba ruux oo waxba haysan inaan waxba haysan iyo inaan waxba haysan bay isku aroosaysa inan iyo inan bay isku aroosaysa marka waxa weyn de waa khayray baa leeyahay ilaahay isku iyo kana Allah isku barakeeyo ku isku guuriyeen kuwa kharash ka bixinayeen in kharash batay oo qaarad noqdeen ilaahay waxaan ka bariyay meesha ka soo saareen in wax khayr qaba loo bedelo ku hali jiray ilaahay rutii ilaa $7 waan ku hali jiray waan ku hali jiray imkana $7 baan ku shubanayaa ninna ma aqaan marka waxa leeyahay Telesom noolaada waa leeyahay Allah in barkeeyo shirkadii lagu khayr qabta Allah in waatiina Allah in ku sii wado